حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلا وعن oo wanaagsan khiyaartana dhageysanaysa meel waliba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii islaamka iyo caafimaadka insaanka ee aan ku falanqeyno daryeelka, tixgelinta iyo mudnaanta islaamka uu siiyay caafimaadka bini'aadamka iyo sida uu arrintaas u qaadaa dhigay qur'aanka iyo sunnaha. qaybaha kale ee barnaamijka waxaan uga hadli doonnaa insha allah daawooyinka kadabatagga ah ee la isticmaalayo markii cudurka uu dhaco kadib, waxaana soo gudbin doonnaa insha allah daawooyinka maadiga ah ee inoo tilmaamtay diinteenna islaamka. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى، قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق. malabku waa mid ka mid ah daawooyinka maadiga ah ee inoo tilmaamtay diinteenna suuban, wuxuuna allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya malabka uu leeyahay: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قال الله تبارك وتعالى إلهي وحو يدي وأوحى ربك ربك وحو وحيودي إلى النحل شندو إلهي الله هدلي وحي قال لقول شيء وحي قال النبي لماذا لقول نقول لها معها وأوحينا إلى أم موسى أوكلوي وإلهام وأوحى هو إلهامي وتببري ربك إلى النحل شنذا وحو إلهي كويد أن اتخذي كردقو من الجبال بورها بيوتا buurahaas guryahaagu ha noqdeen, wa min ashajari geedaha daloolana ee dhowdhowluhu uu dalooliyana ka dhigo meel aad ku dhasho, wamaa yacrishuuna waxay cariishkay kuu sameeyaanna guri ka dhigo. malabka saddexdaasay usii kala faa'iido badan yihiin. malabka buuraha ugu manfaco badan, malabka geedaha ku xiga,
malabka aynu gaagurta u samayno ee magaalooyinka ku xidhanno ayaa ugu manfaco yar saddexdaa noocba waad ku noolaan kartaa waana biico aad la qabsan karaysa baa ilaahay ku yidhi uma dabadeedna shinni yahay kuliicun min kulli thamaraati dhammaan midha dhammaantood xataa kuwa sunta ah iyadu way cuntaa geedaha sunta ah way cuntaa markaasaa qanjidhadeedna warshadahan ilaahay uu ugu abuuray qanjidhada ayaa markiiba sunta ka saara dabeedna wuxuu isu beddelaa maaddo caafimaada kulii dumar baa lala hadlayaa u fiirso uma dabadeedna shinni yahay kulii waxaa la yidhaahdaa 1 milyan oo ubax ayaa loo baahan yahay halka shinnidii inay isooga dab qaado marka la rabo 100 garaam oo malaba inay samayso 100 garaam oo malaba si ay u samayso 1 milyan oo ubax bay ka dhabqisaa shinnidiiba kuliicun min kulli thamaraati midho dhammaantood ka dhabqiso oo ka guro dheecaanka markaad dheecaanka qaadana faslukii mar subula rabbiki waddooyinka ilaahay raac dululan iyadoo ay kuu dullaysan yihiin waddooyinkaasi kaa lumi maayaan kana amban maysid gurigaaga ilaahay baa jidka u dulleeyey yakhruju waxaa ka soo bixi doona min butuunihaa caloosheeda sharaabun wax la cabo oo mukhtalifan alwaanuhu midabadiisu ay kala duwan yihiin fiihi shifaa dawaa ku jirta linnaasi bini aadmiga ugu jirta ina fii daalika arrintaasna la aayatan cibro ayaa ugu sugan liqowmin yatafakkaruun dadku hadday caqliga ka shaqaysiinayaan ay fikirayaan shinnidaasaabaa cibray ugu filan waxaa jira xadiis uu soo saaray imaamu bukhaari oo ay warisay ummunaa caaisha radiallaahu canha waxayna leedahay rasuulku wuxuu ahaa mid jecel waxyaabaha macmacaanka ah iyo malabka حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل axaadiistaan ka qaadanayno in malabka daawo uu yahay waxaa ka mid ah xadiiska abuu saciid radiallaahu canhu ee ku sugnaaday saxiixulbukhaariga waxa uuna leeyahay ninbaa u yimid rasuulka sala allaahu calayhi wasallam waxa uuna ku yidhi rasuulkii allow walaalkay waxa uu ka sheeganayaa inuu ka xanuunsan yahay caloosha wuxuu rasuulku ku yidhi sii malab mar labaad ayuu u yimid rasuulka waxa uuna ku yidhi sii malab ilaa uu soo laabtay mar saddexaad wuxuuna nebigu amray in la siiyo malab ninkii ayaa rasuulka ku soo laabtay mar afaraad wuxuuna nebigu yidhi allaah run buu sheegay caloosha walaalkaadana been bay sheegtay ee waraabi malab حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثم أتى الثانية فقال اسقه عسلا ثم أتاه فقال فعلت فقال صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا فسقاه فبرأ sheekh cabdulilaah xafidahullaah ayaa inoo sharaxayaa faa'iidada malabka uu leeyahay iyo cudurrada uu daawada ka yahay nebigu sal allahu alay wasalam waxaa jirta mawaad ama ashyaa uu dawa ahaan u isticmaalay oo dad uu ku daweeyey ama saxaabada hortiisa ku sameeyeen oo uu maarata u banneeyey uusan ka reebin oo inay laisku daweeye ay bannaan tahay uu ku sheegay nebigu midda kale inuu caafimaad laga helayo nebigu sal alla ly slam malabka horta wuxuu ku daweeyey xanuunka la yihahdo shubanka wuu ka daweeyey xadiiska waad garanaysaa ninkii u yimi walaalkay baa calooshu socota oo shumaya nebi allah ay ku yidhi isqihi casalan warbiyo casal waraabi ee ku soo noqday ee yidhi nebi allow ninkii ma buusoon isqihi casalan markii labaad nebi allow ma buusoon mar saddexaadkii isqihi casalan waraabi markii dambe afraad yidhi ma buusoon uu yidhi sadaqa allaahu wakadaba badnu akhiika ilaahay waa run sheegay inuu asalku inuu yahay maaragtay inuu dawo yahay ilaahay run buu ka sheegay qur-aanka inuu shifaaya ku qoran tahay walaalka calooshta been sheegaysa mar labaadkii markuu afraadkii markuu waraabiyey wuu ku bogsooday taa waxaan fikrada kale ka qaadanna waxay tahay dawada iyadoo maaragtay ilaahay uu sheegay in wax lagu daweynayo ama nebigu inoo sheegay ba haddana waxay u baahan tahay meeqa goor hal mar bay markiiba nebigu wuxuu nagu yidhi hal mar miyuu nagu yidhi mise in lagu celceliyo oo marba lagu celceliyo waa bannaan tahay in lagu celceliya ayaa dawooyinka qaar wax ku daweeyaan sida malabkaasoo kale hadda markuu saddexdii hore markuu shumankii ku joogsan waayey tii afraad buu ilahay ku joojiyey marka ku celcelintaas ayana meesha laga helaya inay faa'iido leedahay ويقول ابن القيم سوى عسل كهاللية العسل فيه منافع عظيمة فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق
والأمعاء وحوليه ابن القيم ملبك منافع فائدوين ووين باكو جرا وحول نظيفية أو ماشا كسارة وصخدي كل حجرتي حديدة عروقنا إي أمعاء يحيدناها من دعيرة كجرتي بود صفية وكبحيا ماشا حوليه ماشي قيان تعفنك أما النبر قيان أما جودها هذا النبر كاس أما شركة بحكاس صباح النبر كي مرتي حوجا ملح يحشرانه والدوية أكلا وطلاعا إن لعنا وكود دوية إن ماشى لمرينا وكود دوية وحوليه نافق للشياخ تذكر وين دأنا وحبو ترابو ليه وأصحاب البلقم يضدك الله توضح هكذا يوحد يقول قباء نبرك عين كاس قباء وطملك وحوي وعنطو وعنطو ذا كمذا وأنا الدواء والدوين كمذا وأنا عبيتان وعبيتان كمذا معانا ذا كمذا وحوي وحل يسقول أنا ووح كمذا ومفرح من المفرحات واحد وحكى فرحيانا وكمدي واحد يلا وحكى فرحي وكمدي هاي وحوليه ابن القيم فما خلق لنا شيء من معناه أفضل منه إلهي وحيالا ينسيه سقل لمدك عنطا عمل العباء عمل الله العباء عمل العنو إلهي إنو أبو ري وحلا مدكم متشران وحكفي عنكم متشران ولا مثله وحمل مثلكم متشران ولا قريب منه وحدوا منكم متشران بوليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه بالماء نبي وحكوا عبي شري بيو عسل كوكو مارتي كوكو قسن شري على الريق استغان wax kale subax ku afurun wali anduft oo horeys isaga wax kale aan afka gelin iyo malabka biyo ku cabi jiray وفي ذلك سر بديع بوليه ابن القيم waxa way sir weyn ba arinta ku jirta oo xagga xifdul sixa oo ilaalinta maartay fayda dhowrkii caafimaadka la yudrikuhu illa al-fatin al-fadil qof tawada ku jirta ma garan karo illa qof aqal badan ilaahay siiyo oo dhugle mooyaan buu leeyahay marka asalku aan ayadii quraanka waa tay baahayd ma aragtay marka ilaahay uu ka hadlay baashan shinida la yiraahdo fihi shifaa'un lin-nas soo ma yahay ayadii waxaa kaloo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ashifaa'u fi thalatha caafimaadkan ba saddex baa laga helaa fi shartati mihjamin toobin la saray dhiigi la saray laga soo daashirki aw sharbati asalin ama kabo asal la kabaday aw kayatin binar ama tabla isku dhaji markaasuu nabigu wuxuu ku daray wa anha ummati an al-kay tabka in la isku dhajiyo ummadda waa ka reebaya laakiin iyadu waxa la yiraahdaan arata wax bay yiraahdaan akhiru dawa'in lid-da'i al-kay markii wax kale lagu qusdo dabka marmar kugu qasbaysaa laakiin nabigu ka reebay dadku ka reebay marka asalku faa'iido badan buu leeyahay markii aan eegno hadalka rasuulka ee ah allah run buu sheegay caloosha walaalkaadana been bay sheegtay waxay inoo tilmaamaysaa xaqiiqo ah in daawada ay leedahay nafci badan cudurka inuu sii joogana ma ahan midna tusinaysa inaysan daawadu waxtar lahayn balse beenta caloosha ayaa ah maadooyinka faraha badan ee ku jira ee sababay cudurka sidaas ayuuna rasuulka sallallahu calayhi wasallam u faray in lagu celceliyo daawada waana inaan ogaannaa in daaweynta nebiga sallallahu calayhi wasallam aysan ahayn sida midda dhakhaatiirta oo kale waayo ta nebiga waa mid la hubo waana waxyi ka yimid xagga alleh subxaanahu wa tacaala halka daawada dhakhaatiirta kale u badan tahay wax lagu ogaaday waayo aragnimo waxaana la inkiri karin nafciga daawada nebiga sallallahu calayhi wasallam waana mid anfacaya ruuxii ku qaata qanaaco waana inuu aaminaa in uu ku raysanayo sidoo kale waxaa ka mid ah qur-aanka oo haddii qofka uu ku qaato qanaaco iyo iimaan uu allaah ku caafinayo balse haddii uusan intaasi ku qaadan uusan helaynin shifaaga iyo daawada lagu sheegay wuxuuna munaafiqiinta u sii siyaadiyaa qurankooda halka jirrada ay qabaan uu ugu sii daro jiro kale daawooyinka ugu muhiimsan ee mudan in sida aadkah loo isticmaalo waqtiyada ay jiraan cudurrada waa geedka loo yaqaano qusdiga nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay waxaad isku daawaysaan waxa ugu fadliga badan waa toobinka iyo qusdulbaxriga عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط geedka qusdulhindiga waxa uu u kala baxaa laba nuuc mid waa midka loo yaqaano baxriga halka nuuca kale uu yahay midka hindiga waana laba geed oo kulul marka la isticmaalayo balse leh awood caafimaad oo gundheer sheekh cumar xayaakalla xafidahullah ayaa inooga warramaya faa'iidooyinka uu geedkaasi leeyahay iyo cudurrada lagu daaweeyo geedka lagu magacaabo cuudulqisdiga amba cuudulhindi dadka qaarkood soo yaqaanaan koonfurna looga yaqaano uburida
weriga u yaqaana reer koonfurka carabigana waa cuudulqisdi. ibnulqayim wuxuu ka waramayaa cuudulqisdiga geedka loo yaqaano cuudulhindiga. waa laba nooc buu yidhi, midkoodu wuu cad yahay waxaana loo yaqaanaa albaxri baa loo yaqaanaa, macnaha cuudulqisdi albaxri baa loo yaqaanaa. ka kalena waxa weeye waa ka loo yaqaano alhindiyo ee qisdulhindi ba isagana loo yaqaana. kan dambeeto ka labadood aada u kulaylka badan, kacadina waa mid jilicsan, manaaficdooda isku darkoodana aada bay u tiro badan tahay. labaduna waa nooca dhirta kulul bay ku jiraan ee haddana yaabisaanka ah. fi thaaniyati macnaha waa qallajiyaal, waxay nadiifiyaan balqamka ayay nadiifiyaan, hargabkana way gooyaan. haddii la cabano waxay wax ka taraan beerka tabardaridiisa iyo caloosha iyo qabowga labadooda ku dhaca waxbay ka taraan. waxay wax ka taraan min xumi dawri, xumida wareegtan waxbay ka tarta, xumida wareega loo yaqaano iyo xuma rabci, xumida afareyda ahoo 4 maalmood markuu imanaysa ayadana waxbay ka tartaa. waqaadica waxay jaraan wajcal jambi, bahasha xanuunka loo yaqaano oof wareenka, ذات الجنب وحلو يقان وفرنك. ونفع من السموم سمتن وحبي كتران. وإذا طلي به هدي لغو ضروب الوجه وجه لغو ضروب معجونا بالماء إسوغو لغو قصيبيو والعسل قلع الكلف وحيقو ينوحن loo yaqaano darbaanaha oo kaleeto shucaaca aad markii hooyada ku dhacdo oo kaleeto waxa wajiga ka fuula ee madow waxa way jaraan. raggana waa ku dhacaa, dumarkana waa ku dhacaan. hormoonaadka jirkiisa ba wax iska dhimeen, nafaqa jirkiisa maxaan ku leeyahay difaaciisa qaar ka dhiman yahay, shucaaca aad markaa adkeysan karo wajigiisa. wuxuu yidhi labadooduba waxay jaraan xanuunka loo yaqaano wajacul jambi, way jaraan oo fareenka. suntana waxbay ka tarahayaan haddii wejiga isaga oo lagu qasay malab iyo biyo lagu qasayna darbaanaha iyo waxa lamidka ay jiraan. waqaal jaalalus wuxuu yidhi yanfacu min alkuzaazi, tashanujaadka ayagana waxbay ka taraan maqaarka macnaha jirka ururay oo kaleeto oo isku soo ururay, murqaha ururay oo kale waxbay ka tarayaan. wawajacil jambayni, xanuunkii aynu hadda soo marnay oo ah oo faneerada waxbuu ka taraa. wayaqtulu wuxuu dilaa xaba alqarci, waa nooc gaardalaan biyada ah, dirxigan caloosha ku dhasha ka mid ah, noocaana waa dilaa. xabatu sawdada waa daawo muhiim ah oo waxtar leh marka laga hadlayo ku daaweynta cudurrada, waana daawo oo inoo caddeeyey waxtarkeeda. nebigu sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا عبيد الله حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. xabatu sawdada waxaa lagu daaweeyaa cudurro badan oo halkan lagu soo koobi karin, kuwaas oo ay ka warrameen dhakhaatiirta nool casrigan iyo kuwii hore intaba. sheekh cumar xayaakallah ayaa inooga warramaya waxyaabaha ay daawada ka tahay xabatu sawdada iyo qaabka loo isticmaalayo intaba. xabatu sawdaa, geedka lidhaa xabatu sawdaaga waa waxa loo yaqaana kamuunta madow, wa tusama alkamuun alhindina waa lagu magacaaba xabasooda. qaala alxarabiy wuxuu can ilxasan inaha alkhardal, waaba khardalka geedka waa iyada lafteeda. وحكي الهروي وحوشك أنها الحبة الخضراء إنتاي، ثمرة البطيم جيد كبطيم كليلا مريس إنتاي، وكلاهما لوضع وهم لوضع وربكون أرنا يمتقنا إن متقنا وخردلك وقولك حسنة كان أرنا يمتقنا وحبة الخضراء ومريس جيد كليلا بدمك أرنا إليه لوضع اسمه سيس بكليه سيد الصح هنا حبة السوداء مقع أي قادته وحاقو عنصن in la yidhaha xabatulbaraka la yidhaahdo amba lagu magacaabo showniis la yidhaahdo oo magaca kasoo jeeda asalkiisu furuska kasoo jeeda, qaarkoodna gariigu kasoo jeeda yidhahdaan. miduu doonaba ha ka yimaade waa luqa ajnabi ah oo la tacriibiyey. kutubaha cilmi dhibigana labadu way ka buuxaan, aad baad ugu arkaysa. xabatu sawdaan waa la isticmaalaa, xabatulbarakana waa loo isticmaalaa, showniisna waa loo isticmaalaa.
labadaba magacda ayadaa wada wa qowluhu nabiga odhaahdiisa sala allahu caleyh wasalam shifaaun min kulli daa'in waxay dawo ka tahay xanuun kasta mithla qowlihi tacaala waytudamiru kulla shayin biamri rabbihaa dabayshii ilaahay uu reer caad ku saliday ilahay muxuu yihi tudamiru kulla shayin wax kasta ayay baabi'inaysaa biamri rabbihaa bay ku baabi'inaysaa ay kullu shayin oo yaqbalu aqbilaya altadmiira in la baabi'iyo wanadaa'irihi iyo wixii la tusaalaha waxay waxtaru tahay min jamiici alamraadi albaarida xanuunka qabowga ka dhasho oo dhan waxbay ka tartaa xanuunada kulla way gashaa dawada qabow xoogeeda ayay gaadhaysaa quwada baaridada iyo radbada waa sifaad ay wataan dawo kastaba way wadataa xabasawdadu way kulushahay waana nooca yaabiska oo macnaha qallajiyaha fi thaalita darajada saddexaad buu ku jiraa aaryada wuu tagsiiyaa bakteriyada loo yaqaano qarciga oo bahalkan cayayaankan yar ee diidaanka ana wuu soo saaraa wuxuu wax ka taraa baraska waa xabad sawdadii xumatulmaadiyaha loo yaqaanana waxbay ka tartaa 4 maalmood markugu imanaysa amba 4 waqti markugu imanaysa wixii sudad macnaha xidid xidhanna ayadana wuu furaa yidhi dabaysha waxyaabaha iyadana way furfurtaa caloosha qoyaankeedana way qallajisaa haddii la tumo oo lagu cajiimo bilcasali malab oo washruba bilmaa'i alxaari biyo kulula lagu cabo adaaba wuxuu dhalaaliyaa alxasaata qururaxa allatii taasoo takuun aanaysa filkalyatayni labada keliyood kaayida wuu shubaa walxayda xaydkana wuu shubaa wallabana caanahana wuu shubaa idaa udiima haddii la daa'imo shurbuhu cabitaankiisa ayaaman maalmo haddii khal lagu kulayniyo lagu dhayo caloosha korkeeda darxiga caloosha ku dhashana waa dilaa faidaa cujina had lagu qaso oo lagu qooyo geedka loo yaqaano xandalka waa nooc qalfoomaha ka mida laakiin bidabdi anugu gobolka uguma arag laakiin sawir ahaan baan ku arkay dadka qaarkood inay yaqaanaan way dhici kartaa xandalka biyihiisa haddii lagu qooyo kaana ficluhu wuxuu noqonayaa fii ikhraaji duudi gaar dallaan biyaha inuu soo saaro aqwa mid xoog badan buu noqonaya wayajlu waa nadiifiyaa wayaqdacu waana jara wayuxallil waana furfuraa wayushafi waa daweeya min azukaami albaardi hargabka qabowga ka dhashay waa bahalkan caburka loo yaqaano haddii la tumo deetana mara yar lagu daboolo oo washtama uu ursado qofku daa'iman adhab waa ka tegsinaya waa caburkaas qofka dadka qaarkood xasaasiyaddu ay keentay qabowga ka dhashay waa kaad arkaysa waxaa laga sii daayay xabatu sawdadii nooca ay tahay iyo nooca waxa lagu sameeyaa haddii malab lagu daro oo biyo lagu cabo biyuhuna ay kul yihiin inuu qurraxi soo daadinayo keliyaha ku dhashay kaadi haysta ku dhashay inuu kaadi badan kaa keenayo xaydkii inuu keenayo caano badan inuu naagta hooyadii ka keenayo haddii cabitaankiisa maalmo la daa'imo haddii sidoo kaleeta khal lagu kulayliyo caloosha korkeeda lagu dharoobo oo lagu dhayo ayadana wuxuu dilayaa gaardallaan biyadaasu dilaya sidoo kaleeta haddii lagu qaso biyaha loo yaqaano geedka xandalka oo qoyan biyihiisa haddii lagu qaso ayadana wuxuu ku leeyahay amba geedkaasoo la kariyey biyihiisa haddii lagu qaso wuxuu noqonayaa awoodda uu leeyahay waxtarka uu leeyahay soo saaritaanka gaardalaabgeeda mid xoog badan bay noqonaysaa wuuna nadiifiyaa calooshii waana jarhayaa bahalka uu kaa dabargoynaya sidoo kaleeto wuuna furfurhayaa wixii mataqaanaa meesha yaalay oo dhan wuxuu kaloo kaa daweynayaa bahalkan loo yaqaano zukaamka amba hargarka amba caburka qabowga ka dhashay haddii la tumo xabad sawdadii oo deetana mar yar lagu gunto deetana qofka uu mar kastaba iyadii ursado waa ka tegsinaysa waxay qaar ka mid ah dhakhaatiirta oo ay sheegeen in xabatu sawdada ay ku jirto maadooyin kor u qaadaya habka difaaca qofka arrintaasna ay muhiim u tahay caafimaadka bini'aadamka مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadii 10aad ee barnaamijka islaamka iyo caafimaadka insaanka waxaan insha allah xalqada xigta ku soo gudbin doonnaa daawooyin muhiim ah oo lagu daaweeyo cudurrada intaan xalqada dambe ku kulmayno sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع